في انت ما ogtiin shir Washington ka socday maalmahan ay ka galayso nafshaas waxa fadhisay gabar Soomaaliya Mareykanka ee Masar ka shaqeyn jirtay waa hore adiga 97 ilaa 2005 inta u dhaxaysay gabadhan dad badan interview soo qaaday dad badan ee baasisay oo visa ay soo siisay wajiga soo diiday wajiga markuu raati sheekh weyn ahayd in qolkaas dad badan oo xitaa qaarkood senator ay kamid yihiin ina meesha adiga gabadhii laba su'aal qodobay laba su'aal qodobay ashbad waxay waxa hay'ad lotri maxay isku diidaa waxa la isku diiday lotri mashahad ku siisana mise shaqadii laba sana aad haysanin gabadha kuna ishaagtay ila markaa mugtahay waxay ka soo shaqeeyeen gabadhu gabadhu waxay dhahday inta badan dadku visa u diinay dhahday inay been sheegaan waxay soo mariyaan magacaadii iyo magac qaaf ee lagu qabtay ama shahaado cabdi shidee wadataa waxa leedahay Amerikanka ma fahmayo alla imaatay arrimaha noocaas ah halka adduunka isbedel saaxiib sabab waxay xiriir la leedahay Soomaaliya Soomaaliya shahaado book markaa keentid meesha lagu laawado waxa leeyahay qofka systemka fiiri Soomaaliya waxay xiriir la leedahay FBS iyo kuwa markaa hay'adaha waxbarashada marka saaxiibo hadaa u doosid oo abaqaa dhexmaro xilligan cabdi shidee u socotid quuso soo laabo bajaajka ku dhac number 5 shaaska anada ku sheegaanaas mid kale sababaha ugu waaweyn Amerika dugsiyada sare waa lacag la'aan cunugga dugsiga sare ku dhiga dugsiga dhexe ilaa dugsiga sare ku dhigana waa lacag la'aan public tahay okay cunugga dugsiga sare dhameeyo jaamacada lacag la'aan ma aha hadii waalidka weli waa ka bixiyo ama adiga awoodeysna iska bixi lacag dowladda ku siinaysa Soomaaliya marka sababta shahaadada dugsiga sare isku xiraya waxa waaye ma rabaan Mareykanka inaad dalkan imaatid oo hadii kadib dugsiga aagshid waxa rabaa inaad dalkan imaatid oo already gaari dowladda ka qabsatid aan isoo shaqadii aagshid xamalkaas macna